bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada iga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii caalamka iyo Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay gaar ahaan maqal wareedkan waxaan si gaar ah ugu faaqidi doonaa dhanka Soomaalida hogaamiyaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo si adag u weeraray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddaba muxuu ku eedeeyay intaan ku soo gudbin qodobkaas faahfaahsan fadlan maqaalka leega saar oo share garay oo ogey cid u baahan muqaalkana leega ugu dadaala idinkoo aad u mahadsan soo kalena page-kana followgiisa kor ayaynu u soconaay followga noogu deeqa waxaanu maraynaa wadadii aan ku gaari lahaa 9,000 oo subscribe fadlan adiga iyo adaa ka dhiman aboowe amba abaaye fadlan taageera aynu ku bilownay intaasi waa iska mahadcelin iyo walaalnimo aynu ku bilownay saaxiibayaal madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo khudbadii maanta uu ka jeediyay magaalada Kismaayo kadib salaadii Ciidul Adha si kulul u weeraray madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda dhexe ee imika uu hogaamiyo Madoobe ayaa madaxweyne Xasan Sheekh ku eedeeyay inuu ku fashilmay hoggaanka dalka iyo ilaalinta wada shaqaynta siyaasadeed wuxuuna sheegay in dawladda dhexe ay dalka ay lumisay imika kalsoonidii siyaasadeed oo wali jeedo madaxda maamul goboleedyada isagoo oo ku dooday in aysan jirin hadda dawlad ay la shaqeeyaan dhinacyada siyaasadda ee maamul goboleedyada oo si buuxda ay imika u shaqayn kartaa inaysan jirin sidoo kale Madoobe wuxuu warbixintiisa ku xusay ama khudbadiisa in nidaamka hadda jira uu ka baxay waqtigii iyo is-afgaradkii hore ee lagu maamuli jiray arrimaha masiiriga ah ee dalka waa sidoo warka u dhigay saaxiibayaal Madoobe oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sidoo kale oo dhaliilay hanaanka doorashooyinka ee ay dawladda federaalka ay wado isagoo qorshaha dawladda ee doorashada qof iyo cod ku tilmaamay mid aan weli hirgelin isla markaana hooseeda sida uu yiri waa doorasho dabran buu yiri oo lagu qorsheeyay buu yiri cidda xilka qaban doonta oo madaxweyne Xasan ayuu la jeedaa dhanka kale Madoobe ayaa khudbadiisa wuxuu uga sii hadlay dhanka khudbadiisa ayaa wuxuu uga hadlay saaxiibayaal xaaladda magaalada Muqdisho ka taagan isaga oo sheegay in dad badan oo la barakiciyay caasimadda si inta badan ay ku doodaan qoladan la baxday sheeg sababta bixinta inta badan ay ku doodaan iyo wax qorshaaba aan haysan ama dawladda kala hortagaan sawirka loo dhigay isla markaana wuxuu ku eedeeyay ama wuxuu sheegay inay la qaybsanayaan dhibaatada ay wajahayaan dadka shacabka ee la barakiciyay ku nool magaalada Muqdisho sidoo kale wuxuu eedeyntiisa u sii jeediyay kooxda uu ku tilmaamay dhulboobayaal wuxuuna sheegay in ay jiraan dad sharciyeynaya dhul sharci darro ah oo lagu qaatay ayuu yiri taas oo uu ku tilmaamay mid aan sameeyeen biiri wax wanaaga ama wuxuu ku tilmaamay mid saameyn ku yeelan karta xasiloonida bulshada Soomaaliyeed waa sidoo warka u dhigay Madoobe ayaa wuxuu ku baaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu dib u mideeyo dhinacyada siyaasadda isla markaana uu ka tanasulo khilaafka si fogeynaya saamileyda siyaasadda wuxuuna hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay u baahan tahay dib u heshiisiin iyo talada dalka dib loogu celiyo shacabka Soomaaliyeed hadii uu taasi sheegay qof iyo codka ay ku imaan kartaa uu taasi ka shaqeeyo isagu waxa hadalkiisa wax moodaa inuu isbirinayo saaxiibayaal waxyaalaha dambe ka soo cusbanaad muuqaalada dambe ayaad ku daawan doontaa fadlan muuqaalkan qabo oo share garay oo legacy oo u geey dadka u baahan inay macluumaadka hadda imika jira ay ku ogaadaan